Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada janaalkeena oo halgan nolosha. Waxaan jeclaystay in aan ila wadaago 8 qodob oo looga baahan yahay qofka Soomaali inuu ku dadaalo. Qodobka koowaad, as-suxuur. Suxuurta ku dadaal. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri tasaxaru fa inna suxuuri baraka. Suxuurta la suxuranayo barako ayaa ku jirto. Qodobka labaad, tacjiilul fuduur. Afurka in la dedejiyo. Markii la aadimo qofka inuu hore ka afuro ayaa wanaagsan. Qodobka saddexaad, qofka inuu cumro sameeyo haddii uu awoodo. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri umratu fihi ramadaan hijjatu maci. Bisha ramadaan oo la soo cumreysto waxay la mid tahay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam inaa la soo xajiso oo kale. Qofka bisha ramadaan soo cumreystay wuxuu la ajir yahay qof Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam la soo xajiyay oo kale. Qodobka afraad, sadaqada. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa qof aad u gacan furan wax uu sadaqayso bisha ramadaan dadka masaakiintana ka farxi. Qodobka shanaad, al-Qur'aan. Bisha ramadaan waa shahrul Qur'aan, waa bishii Ilaahay Qur'aanka soo dejiyay. Nabiga sallallahu alayhi wasallam bisha ramadaan Qur'aanka wuu qatimi jiray. Aan badino Qur'aan akhriska oo aan qatinno ugu yaraan 2 jeer ama 3 jeer. Qodobka lixaad, ku dadaalida adkaarta, istighfaarta iyo saliga nabiga. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay 4 kalimo oo Ilaahay jecel yahay oo ah subxaanallah walxamdulillah walaa ilaaha illa allah wallahu akbar. Qodobka toddobaad, adducaa. Ducayso. Bisha ramadaan waa bishii dadka loo dambi dhaafay. Bisha ramadaan waa bishii dadka naarta laga xoreynay. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay qofka Soomaali inuu leeyahay duco oo haddii uu ku duceysto aan la soo celineynin oo loo aqbalayo ducadiisa. Ducayso markaad afurto. Waalidkaagana u ducay, muslimiintana u ducay. Qodobka 8aad, iska ilaali macsida. Iskina ilaali wax kasta oo soonkaaga burin.